tolkay ciise weyne great nation meel kasta oo dunida joogtaaba waa idin salaamaya nabad iyo naxariisi korkiina ha ahaato qolyihii tiktokerska ahaa ee boorama ka yimiday meeshii wixii ay ka sameeyeen sayla aad ogtihiin waxaan rumaysanaa oon ii muuqatay in aakhirka afxumadan iyo hadal xumadan iyo been abuurkan iyo hanjabaadan inay keeni karto in gacmaha la isa saaro inay ku dhammaanayso aniga waa ii muuqatay waxaan lahaa war afxumada joojiya dhulkan degaankiinni maaha afxumada joojiya caydan joojiya hanjabaadan joojiya waxaanad u hanjabaysaan eed caayaysaan eed aflagaadaynaysaan geeska africa waxay leeyihiin nuclear option wax la idhahdo waa ciidan awood la ayay leeyihiin waxaanad u hanjabaysaan aakhirka haddaad sii wadaan waxaa imanaya in gacmaha la isa saaro wayna dhacdayba deed iminka kolleyba anigoona jeclayn in gacmaha la iskula tago oo la istaabto haddana way dhacday oo waxaa dhacday qolo aan idiin sheegi jiro odhan jiro qolo ciise ah oo subar gaangiisa ayaa jirta oo xoolaha ummadda dhici jirtay oo boobay jirtay oo xataa dumarka ku ruqaansan jirtay oo iminka wadaada ah reerkii aan idiin sheegi jiray waxaa la idhahdaa reerkul waa reerka reerkul la idhahdo waad ogtihiin waxa ay yani halka ay geeyeen qolooyinkii soo duulay meelaha isku soo sawirayay qoryahoogiiba meeshii halkii ay degaankeegu ahaayeen buurtii libaxley bay ku celiyeen ciise kale weli uma iman waa subar gaangiskii reerku lo odhan jiray waxaa geysta marka iyagu waxa ay ku socdaan ay u dagaalamayaan meeshaan u imanayaan saylac degaankooga maayne waa fikir waxa weeyaan wuxuu la mid yahay afghanistan bakistan waxaa jirayay qolo la yidhaahdo daalibaan arday ba ahaayeen dhaqaalaha waxaa bixin jiray sacuudiga adduunyadoo dhan baa carruurta laga keeni jiray qur-aan baa loo dhigi jiray waxaa kaloo la bari jiray nacayb iyo cadowtinimo ay u qabaan dalka ruushka inanimada yaryar way ooyi jireen waxayna u ooyi jireen si ay iskugu qarxiyaan taangiga ruushka amba ruushka ula dagaalamaan si ay jannadii u tagaan ayay u ooyi jireen iminka saylac baan leenahay waa fikir kaa uun bulamidii kama duwana kaa aan idiin sheegaya kama duwana amba ka shabaab oo kale kama duwana waayo waa fikir shabaab waa fikir inay u dhintaanna way rabaan inay bam iskugu xidhaanna way rabaan marka waa fikir ka dhaadhacsan marka reerkan reer boorama fikir baa ka dhaadhacsan inay saylac lahaan jireen oo dhulkoodii tahay baa ka dhaadhacsan waxaani maaha lahaansho ee waa fikir ay dhammaantood ay ku weynaadeen de intaa dhulku ay banaanka vacuumka bannaan ay soo galeen dhulka ciisu iskaga guuray calankii jabuuti la qaatay ee la guuray meeshii ciise ka guuraba iyagaa soo galay marka intaa waxay iska dhaadhiciyeen in iyagu ay dhulkan leeyihiin waana fikir oo ma laha anigu marka waxaan dadka ka duwanahay waxaan ogahay the reality anigu halkaasaan ku dhashay aabbahayna chief local authority buu ka ahaa idrisa banin la yidhahdana ciisu ahaa wuxuu ka ahaa dc ninka maayarka magaaladana waxaa la odhan jiray cilmi waxaa la odhan jiray hebel cilmi baa la odhan jiray oo isna wuxuu ahaa maayarka magaalada ayuu cilmi nuur baa la odhan jiray maayarka magaalada ayuu ahaa booliiska waxaa asan jiray xasan jabane iyo cali banjiir niman la yidhaahdo dhakhtarka saylac maxamed ibraahim caamir aabihii ibraahim caamir baa madax ka ahaa iskuulka laba macallin baa joogi jiray colaad geelle iyo cali cabdilaahi yaasin intaba ciise ahaayeen ma jirayn nin samaroon ah oo mishaar ka qaatay magaalada saylac dhammaantoodna way garanayaan de wixii nool dadkii aniga agekayga ahaa way garanayaan ina awkaariya ka mid ah oo iminka imaamka ah sheekh ibraahim saylici waxaa ka mid ah oo garanaya cawad meesha sidaa yaan anigu u garanaya waxaan arkayaa inay de markaa beeni socoto waxaan arkayaa been qoladii tiktokerska ah aflagaado iyo been iyo hanjabaad iyo cay iyo waxaan loo baahnaynoo bani aadamku u baahnaynoo oo ah distractive ayay la yimaadeen waan arkaya waxaas inay halka ay ku dhammaanayaan meesha ay ku dhammaanayaan ayaa aniga ii muuqatay waayo waxaani ma ahayn wax jira maaha fikir ayay ahayd wax jira ma ahayn lahaanshaha ay sheegayaan fikir ayay ahayd reerkani wuxuu deganaa meesha la yidhahdo meesha iminka lagu celiyay ee la yidhahdo qulujeed meesha maxaa la yidhahdaa bon ayay ka imanayeen waa ninga arkaya iminka reer walba jilib qoryay haystaan meel bay joogaan waan dagaalamaynaa waxbaan dilaynaa waxaase sheegaya reerkan ay u hanjabayaan
ay aflagaadaynayaan ay caayayaan ay waxbaan diwaan dili jirnay iyo waan dilaynaa ay leeyihiin geeskan Afrika wuxuu ka yahay nuclear power iyaguna way og yihiin laakiin waan idin waxay u jeedaan hal idin kala qabto iyo ciisa wax laayay hal yiraahdo waa inta u jeedaan ee wax kala ma waxa kale oo arkay wala tuqoshi ka hadlays oo ka mudaharaadays oo la anagu isaaqna xakumi maayo isaga dhulka iyaga waa ka baxnay waan dagaalamaynaa geedahan galaynaa buurahan galaynaa sayla tuqoshi anigu waxaan ku garanayaa laba oday oo gada bursiya wuxuu xasan nin la yiraahdo xasan jaamac ofle abi ورسوس كلاس هاي ما هاد بالورن جري يودي إبراهيم بحب بالورن جري إن أودي سجن واحد يصدقنا يصير يبدو ومخايد كلها مركدة مخايد بكلها إبراهيم عمر إبراهيم محل بالورن جري هبل إبراهيم جبريل something جبريل بالورن جري جبريل عمر إن لورن جري بانو ماليني ها جبريل عمر وقبل سعادة ليدا عيسى يقبل جري ساسا ماليني لبعض أصلا كو قرنا يا أنا تقشي قد بورسي ما أنت تيم لما أنت سو رصدي وحي كليين سومالي لا أمر ربنا سواء إساقلان أنه قومان كسوهر جيدنا دولك يغانا إنا يبادان مربان مبالا دولك أيوك وحكولي وان مدهرات نايو بورا جيدان قلعي نايو دبدانو بحاين نايو وان جبهدين نايو يد جبهدين إيسا بنان كنا ميدين كادقا مقالة دوما جوبتاني هدا دبدا وغا بحدان تقوشي دقان كمالي هيدين هيدين دقان تقوشي كمالي هيدين هبا يراتي مركا meeshan waad barakacayaal baad ku timaadeen ceelasha milixdaad u timaadeen ciise markuu guuraad dhulka timaadeen inaad milixda ka shaqaysataan ayaad u timaadeen laakiin degaan kuma liidin haba yaraatay meel aad isaaq ugu hanjabi kartaanna maaha toqoshi meel aad Somaliland ugu hanjabi kartaanna maaha meel aad wax kaga samayn kartaan Somalilandna maaha taa waa inaad garataan ta kale waxa jira wax la yiraahdo afka Soomaaliga loo yiraahdo Ingiriisiga character assassination وأنا ركنين لا يراهدو نين أدوك مالهن كهلا مجلسي ما حسوست وعليه ابتيادي بعاية وضد بعاية وأفلقادية ولي جاي اسكومات دين ينقف على فلقادية أم بعاية هالكن مسافرش لكن أنا جوال لي عاية ووحول بوها اللي يقول شيء وجوجردي ما خبري وحبي يصحران وحول بوي هذا لكن أنا جوح معناه ما سمينيش مركا وحل يقول هذا character assassination وابن wixii aad sheegaysay waa dhabeen weeyaan anigu reerna ma caayo gada bursi ma caayo abti ma caayo idan aflagaadeeya ma jirto waxaan ilaahadaa dhulkan idinku ma lihdina invaders baatiin deegaanka kuma lihdina idinku xeebta shaqo kuma lihdina dhulkan xeebahana ma idaan deganayn markii anigu aan noolaa idan anigu dinosaurs ma ihi anigu 60kii baan dhashay waxaan garanaa dhulkan idin deegaan ku lahayn oo deganayn ayaan garanaya taas weeye taas sheegaysa waxbuu caaya ma caaya anigu waxaan dhahaa dhulkani ma liidina idinku degaanna idinku dhulkan kuma liidina invaders baatiin barakacayaal baatiin waad ku soo qaxdeen markaad ku soo qaxdeenna degaan baad ka dhigateen laakiin maanta waad qaldanteen dadkii degaanka iska lahaa baad rabtaa inaad u hanjabtaan oo tiraadaan waxbaan dilaynaa iyo waxbaan dhirbaaxaynaa iyo waxbaan eryanay inaan la inta xoqortaay habeen dharaar waxay qorayaan waa been waxbaan dilaynaa waa tiktokers waxa hogaaminay waxana wax ka jira ma tolkay ciise weynow great nation waxana waa fikir waxa siday u hadlayaan iyo carada ka muuqata sidii Taliban ko kale ayay nagu yihiin inay isku ka qarxiyaan oo bawadhay waa fikir waxana ma hadegaan ay leeyihiin dhul iyagu ay leeyihiin ma waxana waa fikir ka dhaadhacsan oo 34 sanadood dhulkan inay iyagu leeyihiin oo ilahaayeen oo aadal la oran jiray waxaas isku akhriya waad arkaysaa emotional markay hadlayaan rag iyo dumar wali dumar markay hadlayaan way ooyayaan way qiiroonayaan waa kamakaasi sidii kamakaasi inay isku qarxiyaan bay doonayaan wadul inay lahayn bay rabaan isku qarxiyaan waxa maxaa keenay waxana waa fikir ma halhaansha ay leeyihiin waa sheegashadii oo gaadhay heer la yiraahdo fikir waa fikir ay rumaysan yihiin dhamaantood oo iyagoo boor ma joogeen seelax baan u dhibanaynaa oo isqarxinayaan oo bam isku xidhayaan haday doonaan seelaxna shaqo kuma leh marka iminka inaga waxa weeyaan option keena koowaad waxa weeyii dhulkii aan idin sheegay degaankii Ciise in gacanta lagu qabto
oo halkiisii lagu soo celiyo option kale oo inaga inoo bannaani ma jirto dagaal ma rabno cid isdisha ma rabno cid inaga dhimata ma rabno dadku family siday u ahaayeen oo aada laakiin degaan ka wada hadlayna ma degaan cid kale wax laga weydiinayo ma degaan cid kale lagala tashanayo ma hanjabaadan iyo waxaan wax shaqeynaya ma dalka Panama la yiraahdo Mareykanka ku taala dalka Mareykanka ku hanjabi jirtay Panama nuuriyaga la oran jiray madaxweynaha ogana idaacaday u fureen hanjabaad una way Mareykanka u hanjabaan habeen dharar Mareykanka halka looga hanjabi jiray waa Panama itaalka ilaahayna waa yani dunida way garanaysaa maalin qoro Mareykanku intuu galay oo madaxweynihii soo qaaday markaas waa ku xiray marka dad waxa jira wadamo iska sidaas oo distractive oo buuq raadiya jira marka reer Boorama waxay raadinayaan waa buuq iyo waa la istilay iyo kala qabta way og yihiin siday inay dhimanayaan u og yihiin bay og yihiin in Ciise waxba ku sameyn kareen inayna Ciise ku aadi kareen inayna xabad ku ridi kareen way og yihiin run hadday timaado inay loseriska iyagu ay jabayaan way og yihiin haddana waa niga arkay dad afwaa kana may ku aame afkiya aamusin marka hadalka xun iyo afka xun iyo waxaan beenteed akhriyaysan iyo colaada intan leegi waxay keenaysaa dhibaato waayo idinku Ciise la itaal ma tiidina isaaqna la itaal ma tiidina labadaba waxaad diin fiican idinka inaad dadka la noolaataan nabad kula noolaataan walaala ahaataan sad hore u ahaanayseen un ahaataan markaan hadalladiina dhageysto dadka hadlaaya iyo waxa aad qoraysaan iyo comment-kiina akhriyo waan yaaba waxa dhahay tolma nuclear baa u qarsan reerkan idin u ogin isaaq xukuma samayn karayaan Ciise xukuma samayn karayaan haddana meel walba 40 qori iyo 30 qori baa la soo taagay guutadii heblaayo guutadii kale anigu madaxa waan qaadan kari waayo maxay u wadaa waxan disaster weeyaan waa tiktokers waxa hogaaminaya dhibaatada inta leeg reerka waxa u geystay iyo aflagadada inta leeg waxa u geystay inay reerihii jaarka caayeen aflagadeeyaan waa tiktokers baa hogaaminaya tiktokers qolal la yiraahdo ay hogaaminaysa marka hogaankuna uu qaldan yahay taladooduna way qaldan tahay anigu tala hadaan bixiyo oo soo tolkay ula talinayo iyagana ula taliyo waxaan la wax aan nabad ahayn oo idinka idin fiican ma jirto annagu dhaqaalaha xataa waan kula dagaalami karnaa dhaqaale qaar baa Djibouti la ii sheegay halkan lacagta u soo dira mid la yiraahdo rag fara badan de banalkan ku haya magacadooda fara badan mid la yiraahdo geerishuule yaleeri ku MTV maxay la yiraahdo rag badan bana yaalkan oo halkan lacagta u dira halkan Djibouti oo ka shaqeystaan halkan dabkay ka shidayaan way jiraan marka haddii la gaaro dagaalka dhaqaalaha waxaan oo dhan waa idinka xidhmaya oo lacag la idinka soo diri maayo Djibouti oo dhaqaale ka samayn maysaan marka wanaag wuxuu ku jira nabad inaad qaadataan oo dadka nabad kula noolaataan oo aflagaadadan iyo caydan iyo afka xun iyo hadalka xun aad joojisaan taasan idinkula talinaya aad baa idin salaamaya tolkay Ciise weyne great nation meel kasta oo dunida joogtaanba waa kamakaasi reerka nagu soo duulay waa kamakaasi dalka Japan barigii dadku ay qarxin jireen oo kale ayay taagan yihiin fikir weeye waxani maaha wax runa waa fikir waxaanay ku dagaalamayaan qofku fikirka markuu ku dagaalamayana dee uu isqarxinaya marka dad fikir ku dagaalamaya la socotaan bal intii aad ka dhowrsan karaysaan ka dhowrto